Assalaamu calaykum war degdeg ah ninkii aan goordhow idin sheegay oo mid ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn madaxweyne Trump ahaa Charlie Kirk madaxweyne Trump ayaaba xaqiijiyay inuu dhintay goordhow waxaan idin sheegay ninkaasi isagoo arday jaamacad kula hadlaya la yiraahdo Utah Valley University oo magaalada Orem ee gobolka Utah ku taalo in la toogtay isbitaalkana loola cararay ninkaasi hadda waa dhintay 31 jir ayuu ahaa laba caruur ah iyo xaas ayuuna ka tagay ninkan wuxuu lahaa Turning Point USA bara bulsho oo la yiraahdo YouTube-kiisa 3 milyan ka badan ayaa ku xirnayd nin muxaafida ayuu ahaa jaamacadaha ayuu tagi jiray ardayda ayuuna la doodi jiray fikirkiisa muxaafidka ah qofkii ka soo horjeedo su'aal weydiiyo amaba haddii qodob ka mid ah qodobada uu wato laga doodayo uu kala doodi jiray marka 2,000 oo qof isagoo la hadlaya ayaa la toogtay wararku hadda soo baxaya waxay sheegayaan in qofkii toogtaba aan gacanta lagu haynin goordhow jaamacaddu waray soo saartay waxay ku sheegtay dhismo 200 oo tilaabo u jira meesha khudbadda uu ka jeedinayay in laga soo toogtay markii hore waxaa soo baxay nin oday ah oo boolisku ay xirayaan laakiin hadda wararku waxay sheegayaan in aanan gacanta lagu haynin qofkii toogtay weli faahfaahin dheeraada lagama hayo ninkaas isagoo dhaawaca miya isbitaalka la geeyay oo isbitaalka miyuu ku geeriyooday mise isla goobta ayuu ku geeriyooday mise intii la sii waday oo isbitaalka loola sii ordayay ayuu geeriyooday lama shaacin laakiin madaxweyne Trump ayaa bartiisa Truth Social ku soo qoray in Charlie Kirk oo ahaa nin wanaagsan sida uu sheegay in uu geeriyooday wuxuu yiri xaas iyo laba caruur ayuu ka tagayaa waxaanan amray in calanka dawladda Mareykanka dhammaan dhismayaasha dawladda ee wadanka hoos loo dhigo ilaa iyo laga gaaro Axadda 6 galabnimo 6 pm ilaa laga gaaro in calanka hoos loo dhigo marka arrin weyn Trump ninkan taageerayaashiisa ayuu ka mid ahaa dadkii ololaha doorashada markii Trump uu ku jiray u sahlay in dhalinyaradu ay u codeeyaan doorashadii ugu dambeysay Trump ku guuleystay ee madaxtinimada dhamaadkii sanadkii la soo dhaafay 2024 in dhalinyaradu ay u codeeyaan dadkii ka dambeeyay ayuu ka mid ahaa hadda waa uu geeriyooday baaritaan ayaana socda waxaana la leeyahay qofkii ka dambeeyay dilkaasi ilaa iyo hadda lama soo qaban waxa muuqaaladiisa ama bartiisa TikTok uu soo geliyay ka hor inta uusan geeriyoon isagoo aad u faraxsan oo dhahaya dad aad u fara badan ayaa ka soo qayb galo 2,000 oo qof dad ka badan ayaa joogay goobta koofiyo wuxuu watay Trump koofiyada caanka uu ku yahay ee guduudka ama casaanka iyo kuwa cadaan ah oo number 47 iyo 45 ay ku qoran tahay waa madaxweynaha 45aad iyo madaxweynaha 47aad labadii xilli ee Trump uu kala qabtay in madaxtinimada Mareykanka marka arintaasi ayaa jirta ninkii waa uu geeriyooday aan goordhow idin sheegay inuu dhaawacmay warkaasi ayaa u dambeeyay hadda soo dhacay wixii soo kordho stay tuned insha Allah